commentigan ka hadlayo waa intasnin inaag isqabin waxaa guri wada seexiyay how come prank iskula sameyn kara how come naaseedi xabadkeedu waxa soo gelin kara mala xisaabtamo okay mida ku sheeg horta kalsooni please area mifan naagtana ama kaamirada ku soo ama kaamirada gadaash naaga ani shuka ma jirto naaga yani gurigeeda asagoo qabin gurigeeda saacadihii ugu dambeysay baraha bulshada waxaa haystay fanaaniin iyo shakhsiyaad caan oo si xun u aflagaadeynaya Queen Xabsa taas oo barta TikTok ay kasoo geliyeen muuqaal live ah iyagoo gebi ahaanba fadeexada dusha u saaraya. Haddaba intaanan u gudagelin muuqaalkan oo dhammaystiran walan macaan like saar muuqaalka sidoo kalena subscribe dheh channelka haddii ay tahay markii ugu horeysay ee uu ku soo gaaro muuqaalkeena waad mahadsantihiin. fanaanada caanka ah ee Rasmi Raisi iyo walaasheeda Baara ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu dagaal xoogan kala dhaxeeyay Queen Xabsa oo barta loo yaqaano TikTok isku wadaarsanayay hadallo dilqaafa sidoo kalena ay ahayd fadeexado kala duwan waxaana Queen Xabsa dul hooganayay fadeexado kalena asxaabteeda iyo taageerayaasheeda oo ay u soo jeedinayaan taas oo dhowaan ay sheegtay in ay kala tageen xaajigeedii cusbaa sidoo kalena ay tilmaamtay in haba yaraatee wax meher aanu ka dhaxaynin laakiinse saaxiibtinimo ay ku wada joogeen taas oo si weyn looga dheregsanaa xilligii guurkooda ee la shaaciyay Queen Xabsa iyo saygeeda cusbaa in ay ahayd mid loo soo cabutumay laakiinse gadaal ay ka noqotay mid gebi ahaanba hal bacaad lagu lisay. Haddaba Queen Xabsa ayaa waxa maalmihii ugu dambeysay loo soo marinayay fadeexado kala duwan oo ay kala kulmaysay aaladaha social media halkaas oo taageerayaasheeda iyo kuwa ka soo horjeedaba ay isku hardiyeen waxaana muuqatay in Queen Xabsa ay dhex fadhiisatay waxyaabo runtii nafteeda iyo guud ahaan sumcadeedaba hoos dhigaya taas oo xitaa la sheegay in Queen Xabsa ay uur u qaaday ninkani sidoo kalena ay tilmaamtay in saaxiibtinimo uu ku uuriyay taas oo gabdhaha ay asxaabta ahaayeen ee fanaaniinta xilliyadii kala duwanaa ee dagaalku uu soo kala dhex galay markii ay isqabeen ninkan cusub ay noqotay mid ay afka furteen fadeexadna ay hawada u mariyeen. Haddaba Rasmi Raisi oo ay dhowaan xurguf ka kala dhaxaysay Queen Xabsa ayaa baraha bulshada waxay muuqaalo live ka soo galayeen iyaga oo si toos u abaarayo sidoo kalena karbaashaya Queen Xabsa waxaana ay Baara iyo sidoo kale Rasmi Raisi ay hayeen kuwa waxyaabo aan afka la soo marin karin ku hadlaya taas oo xilladii kala duwanaa ee xurgufta ay u dhaxaysay Rasmi Raisi iyo saygeedii hore ee Farxaan Yare ay ahayd xilliyadii ay isqabteen Queen Xabsa taas oo ay hawada isugu soo mariyeen waxyaabo u qarsoona oo dhexdooda ahaa maadaama ay ahaayeen asxaab waxaana inta badan dhacda marka dumarku ay is arkaan in xaaladoodu ay meel xun marayso in midda kaleba ay ka aargudato sidoo kalena ay banaanka soo dhigto siraha u gaarka haddii ay saaxiibtinimada u hayn weyda xitaa ay noqoto mid ay kashifto. Haddaba Queen Xabsa ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay la daala dhacaysay baraha bulshada fadeexadaha kaga imanaya iyo guud ahaan guurarka ay inta badan sameyso oo guul dareysa taas oo lagu tilmaamay in ay u tahay mid social media waayadii ugu dambeysay ay ahayd mid guuldarada weyn ay uga imanayso waxaanay go'aansatay in gebi ahaanba ay iska xirto barta YouTube-ka halkaas oo aanay wax muuqaalaha soo gelin sida ay afkeeda ka sheegtay taas oo dacwad ay ka ahayd dhammaan taageerayaasheeda iyo asxaabteeda waxaanay sheegtay waxyaabaha ugu badan ee guuldarada nolosheeda iyo guurkeeda uu yahay mid uu sababay social media halkaasna ay noqotay mid noloshii private-ka ahayd iyo teedii caadiga ahaydba ay halkaasi ku soo bandhigto. Haddaba fadeexada cayda iyo aflagaadada ay hawada u soo marisay Rasmi Raisi saaxiibadeeda Queen Xabsa ayaa noqonaysa mid runtii dadku ay aad ula yaabeen sidoo kalena ay dhigaha faraha gashadeen lamana ogeyn in wax xurguf ah ka dhaxaysay waxaana saacadihii ugu dambeysay ay ahayd Rasmi Raisi iyo Baara walaasheedba in
ay baraha bulshada gaar ahaan aaladda loo yaqaano TikTok ay si weyn u haysteen iyaga oo si weyn u kashifayo fadeexadeynaya cayna kala daalaya Queen Xabsa taas oo waqti xaadirkan la daaladhacaysa in ay kasoo garwaaqsato ama ay gebi ahaanba kasoo noqoto dhowaan markii saygeeda ay kala tageen sidoo kalena ay baraha bulshada ugu jirto fadeexado kala duwan oo ka dhan ah in waqti xaadirkan ay uur leedahay sidoo kalena ay uur u qaaday ninkii dhowaan baraha bulshada ay wadwaday iskuna dhundhunkanayeen taas oo la tilmaamay in Queen Xabsa ay gebi ahaanba ahayd mid saaxiibtinimo ay ninkaasi ku wadatay oo iyadu afkeeda ay ka qiratay haba yaraatee wax meherna u dhaxaynin taas oo ay sheegtay in wax xalaal ah oo meher ah uu ku guursaday Rashka Boy oo ahaa ninkeedii hore taas oo waqti xaadirkan Queen Xabsa ay tahay mid murugo weyn la dhex fadhida baraha bulshada ayna tahay mid markastaba kasoo hadlayso hadba arrinka cusboonaada iyo guud ahaan waxyaabaha fadeexada ah ee laga fidinayo haddii ay noqoto kuwa soo caayaya ee fanaaniinta ama shakhsiyaadka caanka ah waxaana ay tahay mid muddooyinkii ugu dambeysay si weyn looga dheehanayay baraha bulshada Queen Xabsana ay ahayd mid gebi ahaanba hadba muuqaalada ay soo duubayso lala soo duubayso xaajigeeda cusbaa in uu ahaa mid uu farxad ka muuqday laakiinse ay gadaal ka xumaatay xaaladdu arrinkana uu kusoo gabagaboobay in haba yaraatee aanu ninkaasi xalaal ku qabin sida ay afka ka sheegtay iyada sidoo kalena ay ahayd mid ay baraha bulshada kala kulmaysay dhaleecayn aflagaado iyo fadeexado ka dhan ah shakhsiyaad caan ah gaar ahaan fanaanada Rasmirayso oo ay waqti xaadirkan dagaalkoodu uu aad u cuslaaday baraha bulshadana ay iska weeraarsanayaan kuwaas oo weerar xoogan isku haya haddaba Queen Xabsa iyo Rasmirayso waxa ka dhaxeeya iyo guud ahaan dagaalka waqti xaadirkan soo cusboonaaday ayaa ay dadku ku noqotay fajiciso taas oo inta badan aan la ogeyn wixii hore u dhex maray waxaana ay sheegtay Rasmirayso in ay dib u soo gocotay waxyaabihii inta badan iyo hadaladii qalafsanaa ee fadeexada ahaa ee ay hawada u soo marin jirtay xilliyadii kala duwanaa ee ay ishayeen Farxaan Yare iyo Rasmirayso Queen Xabsana ay ahayd mid markastaba ku dhaga hadli jirtay Rasmirayso haddana ay tahay in maanta ay ka argudato sidoo kalena ay banaanka u soo faqdo sirihii qarsoonaa ee ay isla weeraarsan jireen waxaana ay u muuqataa Rasmirayso in waqti xaadirkan ay tahay mid ka aargoosanaysa Queen Xabsa oo marxalad xun ku jirto oo kalena fadeexad uga imanaysa nafteeda iyo guud ahaan saygeedii dhowaan ay isguursadeen ee beenoobay taas oo uu noqday hal bacaad lagu lisay xaaladuna ay tahay mid murugo isugu soo biyo shubatay maadaama waqti xaadirkan Queen Xabsa ay baraha bulshada hadba meel kasoo qaylinayso ayna tahay mid rabta in ay iska difaacdo eedaha iyo guud ahaan waxyaabaha inta badan loo soo jeedinayo ee ka dhanka ah Rasmirayso iyo sidoo kale asxaabteeda kale ee baraha bulshada kula jira